cabdinaasir maxamed xasan buuni gudoomiye ku-xigeenkii hore ee xisbul mucaaradeedka Ucuud ahna xilligan siyaasi madax bannaan inta badan ka faalooda hadba xaaladaha ka jira Somaliland oo maanta warbaahinta ugu waramayay gudaha magaalada ayaa ugu horeyntiiba waxa siyaasi cabdinaasir maxamed xasan buuni istul taagay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan hadallo ka soo yeedhay taliyaha guud ee ciidamada Somaliland oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn looga hadalhayay gudaha Somaliland. maxaa hadaba inagu soo kordhay waxa inagu soo kordhay haddii ciidamada Somaliland ay bixeen arinta koobaad horta waa arin ciidan waa arin dawladeed in halkeega loo daayay laba arinta caare oo hadda inaga maqan muddo ku dhawaad sanad hadayna wax dheeraynba arintiisaasi bulshooyinka u matalaana ama uu ka soo jeeday arintiisa way galeen dawladuna cagtay u dhigtay intaaba waxa ay waan iyo wada hadal ba socday haddii taliyaha ciidamada qaranku uu ku hadlay afkii ciidamada qaranka iyo haybada iyo waxa weeyaan mas'uuliyadda uu hayo waa tii ku haboonayd horta uu ku hadli lahaa haddiiba se la dhibsaday oo waxa weeye arintaasi laga fal celiyay waxay aanu bulshada iyo salaadiinta madax dhaqameedka ee ay matalaan Suldaan Maxamed Xirsi Qani iyo Suldaan waxa weeyaan Cismaan Suldaan Cali Madar waxaan u soo jeedinaynaa in ay tolka ay leeyihiin ay tahay shacbiga reer Somaliland ee qaranka Somaliland calankiisa harsada haddii layni diray haddii ballan laynaga baxay haddii waxa aad wax tabanaysaan haddii qalad laynagu sameeyay waxa idin talo waxa weey waa shacbiga reer Somaliland iyo bulshooyinka reer Somaliland ee madax dhaqameedka u tiin ninka suldaankaana waxa lagu yaqaanaa markuu suldaan noqdo bulshada oo dhan iyo ummadda iyo samaha oo dhan iyo nabadu matala waan ku hambalyeynaa Suldaan Maxamed Xirsi Qani iyo Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madar dadaalkii iyo sharaftii ay sameeyeen iyo madax dhaqameedka waxa weey halkaas ee galxajis ay sameeyeen iyo shaqadii badnayd ay soo qabteen waan ku hambalyeynaa. dhanka kale siyaasi cabdinaasir maxamed xasan buuni ayaa waxa uu la hadlay beelaha iyo dadka wax ka tabanaya Somaliland isagoona sheegay inay ku casuumayaan gobolka Awdal haddii se walaalayaal ay dhacday in waxa weeyaan aad wax tabateen ama gaf aad tirsateen waxaan inagu casuumaynaa oo Google inay dhigaynaa gobolka Awdal oo ah halka qarannimada Soomaaliland lagu dhameystiray in arintaasi la isku soo gaaro in aad dhulka dhigtaan in wax weey la wada hadlo sharafta aad Somaliland aad ku leedihiin deegaanada aad degtiin iyo qiimaha iyo bulshooyinka aad matashiin sharafta aad Somaliland ku leedihiin waa in aad ilaalisiin annagoo og in qaranka Somaliland wax ku marnaba dhibaato ku ah inayna inaga suurta galaynin inayna marnaba inaga suurta galaynin wax ummadda ka naxiya inayna marnaba inaga suurta galaynin wax cadawga Somaliland ka farxiya annagoo intaaba og waxaan inagu casuunay gobolka Awdal ku soo dhawaada waxa weeyaan dhibaatada aad tabanaysaan shacbiga reer Somaliland gobolkan ugu horeeya halaynila arko inayna inaga noqonin in Somaliland maanta iyadoo ay taagan tahay meel fikti ugu sareysay in Somaliland maanta loo baqama in una biqimayno cid kale hadii looga baqayna cadawga Somaliland ba looga biqiye idinka laynaga biqi maayo idinka waxaanu inagu ognahay qaranka Somaliland cadawgiisa cidda ugu horeysa ee ka difaacda inay idinka ahaydeen imikana aad tihiin walaalayaalow tubta toosan baad ku soo laabanaysiin waxaanu dawladda Somaliland iyadana u sheegaynaa in shacbigeega iyo madax dhaqameedkeega iyo cidda ay hawlgelisay ay cagta u dhigto ay waxa weey ballamihii iyo waxa la galo sideeda ay u fulaan iyadoo nidaamka dawladnimo iyo shuruucda dalka iyo qawaaniinta dalkana aan laga gudbaynin in iyadana la ilaaliyo idinkana waxaynu leenahay maanta Somaliland halkan waa halkii lagu dhisay gobolka Awdal waa halkii Somaliland oo maalinka maanta wax xaaladeeda la ogaa bulshadeeda iyo odayaasheeda iyo dadkii qiimaha lahaa ay dhabarka u riteen. Imraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishinka caalamiga Star TV Boorama.